السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا وناكسن مالك استوجوكتان يسوى البديلة ساعتان بولا قالي دمانتين وعن السلامي سلام قالي ولبا قلبي كسو قاضي انت كدب هورت waxaan mar walba si gaar ah uga mahadcelinayaa asxaabta mar walba fariimaha ay soo dirtaa yani comments-ka ay soo qortaa ee dhiirigeliya ee dhaha waxay masha Allah wax wanaagsan badahayda hore u soco waxaan leeyahay asxaabtaas waxa sabab u noqoteen anigoo gobolkii galgaduudeed ariga ku raaci jiray inaan maanta gobolkiisana qayb kamid ah aan ariga ku raaciyo yani adinka ayaa sabab u ah asxaabta mar walba ay daawada kuwa fariimaha ay soo qoray kuwa ay daawada intaba sababtoo dhiirigelintaas oo dhan adinka ay sideen aad iyo aad baad mahadsantihiin inta kadib islaantu maanta waxay joogtaa qayb kamid ah gobolkii Sanaag bariyahan Sanaag ay ka shidan tahay wilina la isma gaarin oo wax weeye Sanaag intii yareeda barigaan ka soo galay ayaan wili joogaa laakiin maxaa la jiray faano la farakamo qodna markaa waxaan joogaa dhulka xadeedka loo yaqaano ama maxay tahay banka ah qofba si ay u yaqaanaa saxara lama dhigi karo dhulka saxaraha waa dhulka ciidda leh oo maxay tahay bacaadka oo yani sida meelaha matalan Soomaaliya waxaan ku arkay dhanka xeebta jasiiro kale marka dhulkan saxara lama dhigi karo marka dadka qaar wax dhaan ban way dhahaan halkan dhul xadeed ayaa loo yaqaanaa oo macnaheedu yahay dhulka dhirta gaagaaban ee yaryar marka maasha Allah dhulka dooga ee dhirta yaryar leh ayaa saaka arigii la joogaa runtii ariga saaka waxaan u soo raacay inaan tuso muhiimadeedu ay tahay gobol walba markaan tago dhulkiisa iyo sidoo yaal inaan tuso marka gobolka Sanaag oo dhan sidaan ma ahan gobolka Sanaag wuxuu leeyahay dhul sool loo yaqaano yani sool gobolka sool weyn laakiin eriga sool halkan ayaan ku bartay oo dhirta waaweyn meelaha leh waxaad maqlaysaa dhulkaas soosha markaan iraado gobolkii sool ba ka wadin may dhulka dhirta ayaa laga wadaa marka gobolka Sanaag waa dhul aad runtii baaxadiisu weyn yahay oo maxay tahay waxaan dhihi karaa qararada markii aan horta dib maana eegin laakiin baaxada markaan arko meeshan ka joogo iyo meelaha kale sii jira gobolada ugu horeeya ugu weyn ayuu kamid yahay marka dhulkiisu isku jira dhulka qaar sidaan oo kala xadeedka ama banka dhul hawda ama geedale dhul buura geedale intaba dhul badan oo isku jira weeye marka maanta waxaan ka joognaa dhankii marka xadeedka ama banka sida taqaaniin marka maasha Allah halka ayuu arigu daaqaya dhir gaagaaban ee caws u badan ayuu leeyahay dhulkan waxaad ugu tarma oo maxay tahay caan ku ah idaha dhulku wuu kala jiraa waxa jira dhul lo'do kale ay ku dhaqmato oo matalan dhul badan oo koonfurtaas kale aan ku arkay lo'da ayaa aad ugu dhul lo'od weeye oo arigu ku yar yahay waxa arkaysaa reero lo' badan leh ari yar leh dhulka qaar waxa arkaysaa dadku ay geel badan leeyihiin dhulka qaar waxa arkaysaa dadku ay ariga riyaha arcadka oo badan yahay matalan gobolka galguduud oo kale meeshaan joogay iduhu aad ugu badneen oo maxay tahay ariga cadka ayaa badnaa laakiin dhulkan boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 80 waa ido gobolka Sanaag oo dhan badan idaha ayaa aad ugu badan riyaha ama arcadkuna wuu ku yar yahay waxa yeelaya dhirta gaagaaban ayaa iduhu aad maasha Allah ay ugu tarmaan sidoo kale dhulku waa dhul iska qabow wax way dadku idaha ay jecel yihiin hilibka kale hilibka idaha ayaa u badan waan sii tagi doonaa ilaa Ceergaabi halka insha Allah dhulka idaha uu ku badnaa ama iduhu ay ku badnaayeen marka maasha Allah tabarakallah kulli dhulkan inaan intu samaantay waa dhul aad iyo aad u qurux badan maxay tahay maasha Allah waxaana aad runaantii cajiib ah dhulkeena hooyo inuu nooc walba leeyahay waxa laga yaabaa wadan dhan oo jira inuu wada buuran yahay matalan wadamadan qaar marka aragtay carabta kale Sacuudiga kale markaan arkayno kale meelaha ka daawano waa dhul saxara ah badi wada saxara ah matalan Yemen kale wada buuro dhulka qaar marka aragtid dhul wadan dhan waxa jira isku wada dhul ah laakiin wadankeena hooyo waxa laga helaa dhul walba waxaan dhigi karaa Ilaahay abuuray haduu ahaa dhulkii saxaraha haduu ahaa dhulkii buuraha laha haduu ahaa maasha Allah halka deero ayaa ka muuqata deerada dhulkan aad bay u jeceshay u joogtaa iyada aad u waaweyn deero qofka noqon waxa la yiraahdaa deero sagaara maahan waa deero ariga ayay la eg tahay marka maasha Allah dhulkeen wuxuu leeyahay nooc walba ayuu leeyahay marka waana nimcad Ilaahay oo meel walba marka tagtid waxa arkaysaa dhul gooniya marka maasha Allah halka reera degan gaari baan markaan safar ku ahayn kilibka yarka markaan sii qabaniyay waxa arkay dadka qaar
su'aal weydiinaya dhulka maxaa dhirtii ka dhamaystay maxay tahay dhulkan dhir la'aanta galgaduud qaybo kamid ah markaan joogana sidaas kale waa leelaha waxaan idin sheegayaa gobol walba inta anagu soo arkay wuxuu leeyahay dhul isku jira yacni qayb buura ah qayb bannaan qayb hawda wuu isku jira marka dadka su'aalaha weydiinaya meel markay arkaan la yaabaya waxaan leeyahay wixii Ilaahay abuuray ayaa la yaabayseen meta dhul wada buura hada aragto tira muxuu ahaa dhulkan wada buura Ilaahay baa abuuray marka dhulkan sidoo kale geel uu ku nool yahay geela halkan jooga geelasha kale uu ka duwan yahay geel gaagaaban ayaa dhulkan u badan marka ma sha Allah reerkii waa ka xiriyaha waa la ootaa runta oodaha dib baa lagu qabaa sidoo kale qoryaha waxa laga keenaa dhulka soosha ay yaqaanaan laakiin sooshu ma ahantii sool yani gobolkii sool waa meelo dhir leh ayaa gawaari looga doontaa inta badan waa dhulkan dhul inta badan qoryaha laga heli karo maahan ma sha Allah tabaaraka Allah aqaladiina waa ka aqalada qaar sida qaarkood aan tusaysanaa inkastoo dhul badan dhulkii aqalada u badnaa oo dadku dhaqanka waa la sii kaliya dadna dad haaf magaala dadna waa dad dhaqankii ku sii dhagan dadka marka dhaqankii ku sii dhagan insha Allah waan u tagi doonaa tilmaantoodan haystaa ma sha Allah halkan waxa yaala biyihii dadka haaf magaala ay la iska noqdo awrtii la raray jiray iyo biyo la'aantii iyo ooleyda waa laga baxay baag ba dadka qaar u yaqaanaan dadka qaar ramal bay dhahaan wax arisaa ag baan maleynaya marka magacyada inta badan anigu aan inta badan maqli jiray baag buu ahaa biyihii ba halka ku jira booyad ba lagu shubanaya marka waa la hormaray xitaa xoolii waa laga shubaya marka ma sha Allah badanaana waa sidii gobolka Galguduud markaan gobolka Sanaag loo arko dhanka xadaarada kale in la reer magaaloobayo gawaaridii lagu guurayo biyihii guriga ay yaalaan oo maxay tahay gawaari ama baawur lagu keensanayo marka si walba tahana ka ayaa biyaha lagu shubtaa runaantii anigu waxaan dhihi lahaa inta badanna in reemigu meesha ugu daran biyo la'aan ay baahidooda ugu badan ahayd in marka dadka magaalada jooga qoysaskooda ay ka saacideeyaan in marka baaga ama qof walba sidoo uu garanayay bahalka idin muuqda uu iibiyo ma lacag badna kan ugu badan xamalad $300 $150 midba si ayaa la iibiyaa marka dhulku waa dhulka sida quruxda badan runaantii dhulka waxaan dhigi karaa beer ayuu ku qurux badan yahay dhul dalxiiseedna uu noqon karaa ma sha Allah tabaaraka Allah aad iyo aad saan sheegay wadankeena hooyo runaantii waa wadan aad qani u ah waxa way dadkii ayaan jeclaysanayno dhul kale ku sii ordaya ma ahane dhulkeena waa dhul ay nooc wax walba laga heli karo waliba insha Allah dhulkii macdan iyo dahabkii adduunka laga guranayo qayb Sanaag kamid ahna insha Allah waan idin soo bandhigi doonaa marka waa ka dhulkii Sanaag qayb kamid ah gaar ahaan halkan wuxuu dhowdahay magaalada Xingalool ama degmada Xingalool waa bariga Sanaag bariyaha halka ayaan joogay marka qayr badan baa idin rajay